gudida xuquuqul insaanka Soomaaliland ayaa saaka xilli hore waxa ay kormeereen gurgaha booliiska ee Berbera, maxkamadaha iyo jeelka weyn ee degmada Berbera. waftigan ayaa sida ay sheegeen waxa ay dabagal iyo hubin ku sameyn doonaan xaaladda nololeed ee maxaabiista iyo waliba dacwadahooda. sida ay xuseen waxa ay maalintii shalay ahayd soo mareen jeelka weyn ee Madheera. gudoomiye ku-xigeenka komishinka xuquuqul insaanka Soomaaliland Waris Abshir iyo Roode Axmed Yaasiin ayaana ka warbixiyay socdaalkoodan oo ay sheegeen in ay ku marayaan gobolada Saaxil, Togdheer, Lascaanood iyo gobolka Sanaag. waxaan maanta joognaa anagoo ah komishinka xuquuqul insaanka. maanta waxaanu joognaa jeelkii muxuu ahay Berbera ee weynaa. waxaanu doonaynaa inaanu ka bilowno shaqadayada. waxa nooga horeeyaan u nimi waxa weeye maadaama aan cusubnahay inaanu isbaranno intii hawshii naga dhaxaysay oo dhan inaan wada xidhiidhno, inaan ogaano baahidiisa, inaan ogaano muxuu ahaayay wax alaaliya wixii uu baahan yahay muxuu aan qaban karno anagu ama hay'adahii aanu la qaban aan u wareejin u gudbin karno ayaan u nimi. aanu maxay tiro taagannahay xabsigii degmada Berbera. waxaanu u soconaa shaqadii xuquuqul insaanka taasoo taabanaysa baahiyaadka nolosha maxaabiista, taabanaysa kiisaska noocyada kasta oo ay yihiin, taasoo anaku aan nahay guddi u madax bannaan shaqadeeda. madaxweynuhu oo loo dhaariyo kitaab gacanta u saaray madaxweynuhu maalintii xilka la noo dhaariyay. waxaanu ku kala tagnay cid loo habradaa oo shaqada looga habradaa oo looga dambeeyo inaanay jirin in dadka xuquuqdooda ay helaan. annaguna tii ayaanu ku nimi. saldhigyaduna aanu maanta marnay waa saldhigyada ugu fiican sida u shaqeeyaanoo maanta ugumaanu tegin dad muddo dhaaf iyo dad la iskaga haysto way iska soo wada gudbiyeen. kiisas wada cusub baan ugu tagnay xalay iyo shalay ugumaanu tegin wax hore oo ku xidhnaa. taliyaha jeelka weyn ee degmada Berbera Gaashaanle Aadan Cumar Cabdi ayaa isna si diiran u soo dhaweeyay gudidan xuquuqul insaanka ee booqday jeelka weyn ee degmada Berbera. hadalkan aan u bilaabay aan meesha u taagnahay aan soo dhaweynayo si wanaagsan ayaan idin soo dhaweynaya. waanaan idinla shaqeynaya. waxa wadaana waa idinla eegaya, waa idinla shaqeynaya. waan idin soo dhaweynaya. wax balaaya oo dheer oo dhibaata oo walwale oo aan imika idin sheegaana ma yaalaan. وياسين جامع علي تلفزيون كعالمي قاهر بولشة تي في مقالة حبيت بربرة.